assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. kulanti wacan oo wanaagsan, ku soo dhowaada cashirkeena cusub ee galabta. cashirkeena cusub ee galabta waxaan ku qaadan doonaa lafa xanuun. lafaha i xanuunayo, allah maasha allah. hooyo lafaha i xanuunayo, aabba lafaha i xanuunayo, walaal lafaha i xanuunayo, abbaayo lafaha i xanuunayo, xabiibtii lafaha i xanuunayo oo xala maanan seexan. Don't worry, be happy. galabta ayaa intaas oo dhan ka kaaftoomaysaa lafa xanuunka. waxaad ku baran doontaa markaas 4 shay ama 4 hab oo ugu iskaga daawey kartid adigoo u tegin dhakhtar la'aan ama dhakhtar. midda koowaad waa in aad samaysaa dhaqdhaqaaq xaq dhaaf ah, yacni exercise. waa inaad exercise samaysaa mar kasteeto, ama subaxii markuu waaga baryo waa inaad dhaqdhaqaaqdaa exercisekaas. sababtoo ah exerciseka wuxuu kaa caawinayaa dhammaan xubnaha dhan in ay dhaqdhaqaaqaan, iyo murqaha jirka iyo meelaha kala goosyada. sababtoo ah exerciseka wuxuu faa'iido u leeyahay dhammaan jirka dhan. haddii aad exercise samayso, waxaa yaraanayo dhammaan xanuunadii jirka ee ku dhacaya ama lafaha ku xanuunaya. lambar 2, haddii aad tahay qof cayilan, waxaad isticmaali kartaa exercise. sababtoo ah cayilnaanta zaa'idka ah waxaa keeno cayil fara badan, ama lafa xanuun ayuu keenayaa cayilka. taas oo micnaheedu ay tahay in exercise badan aad samayso. cayilkana waxaa iska yaree karo qofka naftiisa ka fikira. haddaba waa inaad ka fikirtaa naftaada oo cayilka aad iska yaraysaa. haddii cayilka aad yarayso, waxaa yaraanayo dhammaan xubnihii ku xanuunayey, lafihii ku xanuunayey, isgoosyadii ku xanuunayey waa ay yaraanayaan. maasha allah. qodobka 3 waa in aad iska ixtiraamtaa ama aad ka taxadirtaa cuntada aad cunayso. waa in aad ka taxadirtaa, sababtoo ah haddii aad isticmaasho cunto dufan ka buuxdo, waxaad mar kasteeto ku sugan tahay xaalad khatar ah. waa in aad mar kasta iska yaraystaa. haddii aadan yaraynin cuntadaas, aadan weliba si fiican iskaga ilaalin, waxaa mar walbeeto u nugushahay in jirkaada uu ka buuxsamo dufan, taasoo kuu sababayso in aad cayisho, kadibna ay ku xanuustaan lafa xanuun kugu dhaco. qodobka 4 ee ugu dambeeyo waa inaad mar walbeeto aad isticmaasho borotiin ama collagen. borotiinka iyo collagenka waxay kor u qaadaysaa awood jirdhiseedka ee jirkaaga, taasoo micnaheedu ah in aad mar kasta isticmaasho borotiin ama collagen. maxaa laga helaa marka labadaas shay? waxaa laga heli karaa hilibka, kalluunka, ukunta iyo baradhada. sababtoo ah waxaa ku jiro 4taas shay ee raashinka, borotiin iyo collagen. mar kasteeto jirkaada wuxuu noqonayaa qof is haysto, taasoo micnaheedu ay tahay in yacni mar dambe oo kusoo weerari karin xanuunka lafa xanuunka ama lafaha ku xanuunayo. maasha allah. laakiin dardaaran ayaan idiin wadaa. haddaba waa dardaaran. waxaan kula dardaarmayaa, haddii aad fideogan aad daawato, in aad mar kasteeto aadan isticmaalin cuntooyinka lasoo warshadeeyey. sababtoo waxay caafimaad darro ku ridaysaa xanuunada lafa xanuunka ama calool istaaga. haddaba waa inaad ka digtoonaadaa, sababtoo ah mar walbeeto ma xamili kartid
cuntooyinka lasoo warshadeeyey. Wabilaahi towfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.